waxaan filayaa inaad saddexdaas stage iyo labada phase aan soo sheegnayba si mug ah aad kaga bogan doontid marka inuu u gudgalno qaybtani diaphragmka inuu ku sharxi doono sawirka yar ee jaantusta muujin doono waxyaabaha aynu hadda ka hadlayno iyo wax ka badan intaynu hadda soo sheegnayba waxaan ka codsanayaa inaad inala soo daabatid kadib aynu isku soo laaban doonaa insha Allah aynu marka kaan isla eegno jaantuska halkan inooga muuqda waxaanu in badan inoo soo koobi doonaa life cycle-ka plasmodium-ka uu leeyahay ama uu yeelan karo cudurkan loo yaqaano malaria sida hore baynu ugu soo dhawaajinay waxaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo life cycle of malaria laba qaybood oo kala ah sexual stage iyo sexual stage sexual stage-ka marka waxaa loo yaqaanaa mosquito stage halka asexual stage-kana loo yaqaan human stage hadda marka waxaa muhiim ah inaynu si guud u sharaxno jaantuskani halkani inoogu muuqda waxaynu ka bilaabi doonaa marka ugu horeyso halkee ayay ka bilaabataa infectionkani in qofka ama noocani protozoaha ah in qofka aadmiga uu usoo gudbo sida qaybta hore muuqaalka aynu kusoo sheegnay waxaa muhiim ah marka gudbinta laga hadlayo plasmodium in uu gudbintiisa ka qayb qaato vector qaasatan vectorka aynu sheegno waxa uu ahaa female mosquito anopheles-ka oo ah kaneecada nooceeda dumarka ah hadda waxaynu arki karnaa marka in life cycle-kani uu ka bilowdo marka ugu horeyso uu jirka soo galo infectionka isagoo jirka ka soo gali doona infectionkaasi qaniinyo ka timid kaneecada taasoo ay kaneecadu qaniini doonto qofka aadmiga ah marka ay qaniinto qofka aadmiga kaneecada waxay noqonaysaa laba midkood in qofkaasi jirkiisa ay ka qaadato dhiig ayna ku shubto haddii ay tahay kaneecada qofkaani contact la sameynaysa mid infected ah in ay jirkiisa ku shubto spermicide waa maxay spermicide cycle-kani human cycle markaynu ka gudubno aynu ugu tagi doonaa qaybta mosquito cycle ama mosquito stage qofka marka ay qaniinto marka kaneecadii oo ay kaneecadii qofkaani jirkiisa ku shubto spermicide human cycle-ka waxa uu markaani u sii kala bixi doonaa laba qaybood wareegta nololeed ka dhacaya beerka iyo wareegta nololeed ka dhacaya dhiigga wareegta nololeedka ka dhacaya beerka waxaa loo yaqaan human liver stage ama waxaa kaloo loo yaqaanaa exoerythrocytic cycle waayahay qofka marka ay qaniinto kaneecadii waxaa dhacaysa in uu bilowdo human liver stage kani waxa uu ka bilaabanayaa marka in spermicide-kii lagu shubay qofkaani jirkiisa si toos ay directly u tagaan unugyadii beerka ee loo yaqaanay hepatic cells ama liver cells-kii ayay tagayaan marka ay gudaha u galaan marka waxaa dhacaya in infected ay ka dhigaan ama ay infect gareeyaan unugyadii beerka haddii ay dhacdo unugyadii beerka in gudahoodii ay infect gareeyaan spermicide-kii waxaa dhacaya in spermicide-kii ay ku bataan selkii beerka uu lahaa kadib unugaasi dhexdiisa markay ku bataan waxa ay isu bedeli doonaan ama ay noqon doonaan shizon marka ay noqdaan kadib shizonkii waxa uu keenayaa in selkii uu ku sameeyo rupture selkaasi marka rupture-ka ku dhacay ama dilaacaya waxa kasoo baxaya ma noqonayeen shizon ee waxay noqon doonaan quruuracaasi kasoo baxaya selka gudihiisa magac waxay qaadan doonaan magac loo yaqaan merizoid waxaynu soo fahnay hadda in liver cell-ka markay la infect gareeyo ay infect gareeyaan spermicide-kii ay ku dhex bataan ay isku bedelayaan shizon kadib markay isku bedelaan in ay sameyn doonaan in selkii ay rupture ku sameeyaan ama ay dilaaciyaan dilaacintaasi kadib marka quruuraca kasoo baxaya selkaasi shizonka ku sameysnaa ee ku yimid rupture-ka waxaa loo yaqaan merizoid waxaan filayaa baska in si fiican aad ila saaran tahay aynu u gudubno marka stage-ka xiga ee human blood stage ama blood stage aynu u gudubno wareegta nololeedka aadmiga dhiiggiisa ka dhacda stagekii ahaa human liver stage waxa uu ku eg yahay marka la soo daayo merizoid-ka oo uu shizon cell-kii ku yimaado rupture hadda marka quruuricii shizon cell-kii ka yimid ee loo yaqaanay merizoid-kii
waxa ay geli doonaan unugyadii dhiigga ku jiray qaasatan unuga loo yaqaano RBC-da ayay geli doonaan. Stage-kani marka aynu ka tagaynay loo yaqaan human blood stage waxaa kaloo loo yaqaan erythrocytic cycle. marka ay dhacdo marka in marasuweedkii uu gudaha u galo unugani loo yaqaano RBC ama red blood cell-kii waxaa dhacaysa in gudihiisa uu ku sameeyo marka immature trophocyte. waxaa ku sameysmi doona unugii RBC-da gudihiisa immature trophocyte ayaa ku sameysmi doona. trophocyte-kaasi ku sameysmi doona marka unugii RBC-da qaasatan marka uu yahay trophocyte-kaasi mid aan qaangaar ahayn waxa uu mari doonaa laba midkood: in si toos ah uu isugu bedelo gametocyte, kadibna si toos ah uu ugu noqdo unug diyaar u ah in la qaado kaneecadii si qof kale ay ugu garayso infection-kani. ama waxaa kaloo dhici karta in uu maro in immature trophocyte-kii loo bedelo mature trophocyte. kadib markii loo bedelo mature trophocyte uu dib u soo bilowdo cycle-kii ahaa in shizon uu isu bedelo trophocyte-kii. kadib marka uu noqdo shizon-kii uu sameeyo rupture. haddana rupture marka uu sameeyo marasuweed ay ka soo baxaan marasuweedkii haddana dib ay unugii RBC-da gudaha u galaan haddana uu cycle-kii soo bilowdo. marka immature trophocyte uu noqdo RBC-gii waxaa dhacaysa in labadaasi mid uu u baxo. marka uu yahay marka mature trophocyte ama marka uu yahay immature trophocyte waa xilliga la aqoonsan karo in bukaankani ama qofkaniba uu qabo cudurkii, waayo waa xilliga qofkani uu soo muujinayo calaamadihii. waxaan filayaa marka in conceptigani qaybta human cycle-ka aynu isla fahnay, qaybtii liver stage-ka iyo qaybtii blood stage-kaba. waxaan kusii darayaa qaybta gametocytes-ka markaynu ka hadalno in unugyadani gametocytes-ka markii immature trophocyte-ka loo bedelo gametocyte ay noqon karaan marka kuwo male ah iyo kuwo female ah. maxaad ula jeedaa? waxay noqonayaan kuwo dhidig ah iyo kuwo lab ah. sidee ku noqon karaan? haddii gametocyte cell-kaasi haddii uu noqdo plasmodium falciparum waxa uu noqon karaa ama male ama female, labada jinsiba waa uu noqon karaa. balse haddii uu noqdo plasmodium-ka sida plasmodium vivacis, ovale, malaria, dhammaan waxay noqonayaan marka kuwo ah female ama dhadig ahba. sidaasi darteed haddii hal ka mid ah plasmodium-kani male-ka ama female-ka ah iyo mid vivacis-ka ama mid ka mid ah noocyada kale ee plasmodium-ka ay isla falgalaan marka ay gaaraan mosquito stage waxaa dhacaysa in ay sameeyaan marka tarankaasi waxa uu noqon doono waxaynu ku arki doonaa qaybtani. marka kane waxaynu bilaabaynaa stage-ka xiga ee mosquito stage. human stage waxa uu kusoo dhamaaday in immature trophocyte-kii gametocyte laga dhigay gametocyte cells-kana kadib ay isu rogeen kuwo male iyo female noqon kara ee plasmodium falciparum iyo kuwo noqon kara female ee kala ah plasmodium vivacis, ovale iyo midkani loo yaqaano malaria-ba. haddaba marka cayayaankii kaneecada ee qofkani jirkiisa qaniinay waxa ay ka qaadi doontaa unugyo gametocyte cells loo yaqaano ee isku jira ayay qaadi doontaa. unugyadaasi marka ay qaado waxa ay sameyn doontaa in ay injection ku sameyso oo ay laqdo. marka kaneecadu ay laqdo marka ayaa waxaa bilaaban doono stage-ka loo yaqaano mosquito stage. siduu ku bilowdaa marka unugyadii ayaa marka waxay sameyn doonaan in si sexually ah ay u tarmaan. marka ay dhacdo marka in ay tarmaan waxaa maxsuul ah kasoo bixi doono in laba unug la soo saaro. labada unug la soo saarayo waxay noqonaysaa unug loo yaqaano macrogametocyte iyo unug loo yaqaan exflagellated microgametocyte. marka labadani marka waxay sameyn doonaan in midkani exflagellated microgametocyte-ka uu gudaha u galo macrogametocyte. kadib waxaa sameysmi doono marka ay labadoodii midoobaan unug loo yaqaano okinate-kaasi kadib waxaa bilaaban doona in uu sameysmo unug loo yaqaano oocyst oo u sameysan sidii ukuntii oo kale oo loo yaqaano oocyst ayaa sameysmi doono. kadib waxaa dhici doonta marka in salkii oocystiga ahaa uu sameeyo rupture.
rupture marka uu sameeyo waxaa soo bixi doona marka unugyo loo yaqaan spermatozoid marka ay gaartana waa heerka kaneecadu ay awood u leedahay in ay ku infect garayso qof kale bukaan ah ka fiyo cudurka kani malaariyada qaatin kartana in gudihiisa ay ku sameyso infection kani hadaba haddii marba ay gaarto marka spermatozoid stage ay loo yaqaano stage kani ugu dambeeya mosquito stage ama sporogenic stage ay loo yaqaano spermatozoid stage ee ah in la soo saaro spermatozoidskaasi waxay keenaysaa marka in qofkaasi caafimaadka qaba ay awoodi karto kaneecadii in ay saameyso waxaan filayaa marka sexual cycle iyo asexual cycle iyo wareegyadii aynu ka soo hadlaynay ee wareegtada nololeed ee uu yeelan karo plasmodiumka ama malaariyada inaynu in badan wada fahanay waxaynu markaan u gudbi doonaa marka qaybaha xigay casharka in la socdo wanaagsan qaybta xigta hadda waxaynu kaga hadli doonaa marka su'aal hadaay toole marka casharkaynu bilowga inuu ahaa aynu isweydiinay taasoo ahayd miyaa loo dhiman karaa cudurka kani malaariyada dadka inta badan ma aaminsana balse haddaan jawaabtaada ku sii waa loo dhiman karaa dhimashadiisana waxay ka imaan kartaa hadda qaybtani aynu ku hadlayno ee pathogenesiska marka ugu koowaad pathogenesiska markaynu ka hadlayno cudurka kani ee loo yaqaan malaariyada waxa inta badan uu saameeyaa unugyada loo yaqaano RBC-da isagoo ku keeni doona marka in ay ku dhacdo wax loo yaqaano hemolysis waa maxay hemolysis waxa loo yaqaan waa destruction-ka ama burburka ku yimaada unugyada dhiigga cascas taasoo marka keenaysa in ay hadhow dambe qofkii develop gareeyo wax loo yaqaano anemia qofka waxay ku keeni doontaa anemia inuu develop gareeyo waa mid laba waxay ku keeni doontaa qaasatan qaybtan loo yaqaan plasmodium falciparum-ka in xaalado adag ay qofka geliso xaaladaha adag waa maxay marka laga hadlayo plasmodium-ka qaasatan qaybtiisa hadda inuu ka hadlayno plasmodium falciparum-ka waxa uu ka mid yahay ama loo yaqaanaaba malignant plasmodium maxaa loola jeedaa waa mid faafi kara intuu ku faafaa markay dhacdo plasmodium-kani in uu keeno hemolysis destruction-kaasi waxa uu kusii faafi doonaa capillary-ski kadib capillary-ski waxa uu usii gudbi doonaa xubnihii kale ee jirka taasoo marka keenayo inuu qofkii develop gareeyo liver damage kidney damage waxa uu usii faafi karaa ama uu sii gaari karaaba maskaxda oo uu ku keeni karo xaalad loo yaqaano cerebral malaria ama malaariyada qaasatan qaybteeda ku dhacda maskaxda ee loo yaqaano cerebral malaria waxaana keena noocan aynu ka hadlayno ah plasmodium falciparum oo aynu Soomaali ahaan u naqaano BF markaynu soo gaabinaba aynu ku sii socono marka hadda waxaynu ka hadalnay in uu keenayo kidney failure sidoo ku keenaa liver failure ayuu keenaa sidoo ku keenaa naftirkiisa waynu ka hadli doonaa balse waxa diiradda ugu badan aynu saari doono waxay noqon doontaa kidney failure hadda aynu fiirino marka kidney failure wuxuu ku keenayaa kulama ay dhacdo in la soo burburiyo destruction lagu keeno RBC badan waxaa la arki doonaa in ay soo raacdo kaadadii maadadani loo yaqaan hemoglobinta ee laga helo RBC-da gudaheeda ka caawin jirta in oxygen carrier uu sameeyo oxygen-ta uu qaado meel kala geeyo ayaa waxa ay soo raaci doontaa kaadadii marka ay soo raacayso waxa ay soo mari doontaa marka kilidii iyo xubnihii kale sida nephronki ay soo mari doontaa kadib soo maridaasi waxay qofka ku keeni doontaa xaalad loo yaqaano hepatosplenomegaly in beerkii iyo kilidii ay bararto kilidii inay bararto maxaa keenaya naftirkeeda waynu u soconaa beerkii kilida inay bararto waxa keenaya xaalad ka dhalan doonta bidatan in hadda ka hadlayno xaaladaas waxay noqon doontaa marka uu faafo oo uu gaaro in hemoglobin ay soo raacdo kaadidii qofka waxa uu develop gareyn doonaa xaalad loo yaqaano black water fever oo ah black water fever waa maxay qofka kaadidiisa kalarkii ay lahayd markii hore waa isbedelaysaa oo kalar waxay la soo bixi doontaa madow ah kalarkaasi madowga ah inay la soo baxdo cilada waxa ay ka jirtaa marka kilidii haddii ay saas ku sii socoto hemoglobin badan ay soo marto inta badan lama ogola hadday soo marto waa xaalad abnormalkaasi wuxuu keenayaa marka in uu dhacdo acute renal failure kadib markay ay dhacdo waxaa jiraya qaar ka mid ah qaasatan sinusideska ee ku yaala ama qayb ka ah spellinka iyo walaal mustacaan qaybtani aynu hadda ka hadlayno oo ah unugyadii jirka sida lymphocyte iyo macrophage naftirkooda waxaa soo gaari doona in ay noqdaan kuwo destruction ku yimaada destruction kaasoo marka keenaya marka inay soo weeraraan aynu dhahno
cafwan in ay soo weeraraan RBC-dii qaldantay ama yeelatay midab ama qaab ka duwan qaababkii hore ay ku kasi jireen markaan waxay u arkaan marka in uu yahay mid out ama ka yimid foreign antigen inuu yahay foreign antigen-ka ayay la sii dagaalimayaan dagaalkaasi marka wuxuu keenayaa inuu waxyeelo qaybihii la saameynayay sida beerkii iyo beer yarihiiba waxaad imaan doonta marka hepatosplenomegaly ayaa imaan doonto hepatosplenomegaly kadib waxay usii faafi kartaa usii gudbi kartaa maskaxda markaasoo qofka ay ku keeni doonto xaaladda hadda aynu sheegnay oo ahayd cerebral malaria ayay ku keeni kartaa qofka marka uu dhiman karaa hadday ku keento qofka renal failure xaaladahaas waa xaaladaha ugu badan oo qofku u dhinto hadday ku keento hepatosplenomegaly beerkii iyo beererihii ay waxyeelowaan barar ku yimaada kadib qofka waa uu dhiman karaa maskaxda hadday sii gaarta kadibna waa xaalad ugu sii daran oo aan la sii daaweyn waxa uu qofka u sii nuglaan karaa inuu dhinto noocani ayaa ugu badan Plasmodium falciparum-ka marka inuu ka hadlayno dhimashada balse noocyada kale way keenaan balse xaaladahooda waa mid reer ah ma ku badna sida midkani uu saameyntiisu u badan tahay oo kale waxaan filayaa marka qaybtani pathogenesis-ka hadda inuu ka hadalnay inaad wax badan ka fahantay qayba waxaa jira marka malignant ah hadda waxaynu ka soo harnay malignant aan dhahno benign ayaynu ka hadlaynaa marka ama waxaa jirto qayb loo yaqaano benign malaria waa maxay haddaynu malignant ka soo harnay waa Plasmodium falciparum-ka benign-kana waxau noqon doonaa ama kuwa saameyntooda keliya meesha ay ku dhacaan ku eg ovali iyo fifax markani waxaynu ka hadlaynaa marka calaamadaha lagu arko qofka qaba cudurka kani malaariyada calaamadaha lagu arki karo qofka marka uu qabo cudurka kani malaariyada waxaa ka mid ah qandho ama xumad gaaraysa ilaa 41 degree centigrade oo ay la socoto qarqaryo waxaana raaca in bukaanka uu isku arko madax xanuun murqo xanuun iyo kaligoyshadii qofka oo xanuuna bukaankana waxa uu isku arki karaa calaamadahani 2 isbuuc kadib marka ay qofkaasi qaniinto kaneecadii waxaa kaloo soo raacaya calaamado ay ka mid yihiin labalabo matag iyo calool xanuun xumadda saaran bukaankaasi haddii ay sii dheeraato waxa ay keenaysaa ama ku keenaysaaba qofkii in uu dhidido oo dhidid badan uu keeno calaamado reer ayaa jira marka oo lagu arko 3 meelood hal meel ka mid ah bukaanada la ildaran ama qababa cudurka kani malaariyada calaamadahaas oo kala ah in bukaankii lagu arko splenomegaly oo ah in bukaankii beeryarihii uu ka weynaado iyo waxaa kaloo la arki karaa in bukaankii uu ka weynaado ama barar uu kaga yimaado beerkii oo loo yaqaano hepatomegaly labadaasi calaamadood oo kulmay marka waxay cadaynaysaa in bukaanka uu galay xaalad safiira daaweynta cudurka kani haddaynu ka hadalno marka kani ee loo yaqaano anti-malaria drugs-ka waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano artemisinin drugs-ka oo ka kooban artemether iyo artesunate daawooyinka la soo raaci kara waxaa ka mid ah atofaquone chloroquine doxycycline mefloquine quinine iyo bromoquine daawooyinkani dhammaan waa daawooyin loo isticmaalo in lagu tacaalo cudurka kani malaariyada waxaana ugu caansan daawooyinkani loo yaqaano artemisinin drugs-ka waxaan filayaa daawooyinka loo isticmaalo in lagu dabiibo cudurka kani inaad in badan ila fahanteen aynu u gudubno qaybta xigtay casharkeena haddii aynu soo fahanay dhammaan qodobadii aynu kaga hadalnay uuna talagalnay inaynu mowduucan maanta kaga bogataan ee ku saabsan casharkeenan toddobaad ee maadada tani medical cytology-ga waxaan filayaa inaad wax badan ka fahantay casharka kani casharkiisa xiga intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh